إلهي بانكم هدينيا إلهي بانكم هدينيا ما أنت هالكني جوجيي يوصيمي إن أنك قيب قالوا أو أنك مد نقضوا تدكي أما شعبي سومالي دوغادينيا أو ما أنت هالكني سويميد أو حصها إنو تاريخ دي قبودي دب كبدنيد كبحو دياروه إنو تاريخ عصب أو مستقبل كودا كردسان إنay maanta halkan ka bilaabaan ilaahay baan ku mahadinayaa shacbiga Soomaalida ogaadeen ka soo saaray dhibaatooyinkii muddada badan la soo kawsatay dhibkii iyo gumaysigii muddada badan lagu hayay ilaahaygi ka soo saaray yaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa aad iyo aad baan idin salaamayaa shacbiyow شعبية الصومالية وقاعدين يا أدبان وسلامة يا خاقية وين يا عرور انت شوكتي انت مقنبة ادي أدبان دين سلامة يا سلام قعلتويو سلام قبني مدون سلام شرف لي ايان دي سو شيدين يا هل كان دي كسو شيدين يا هذه أدباد مهتنتهين إلهينا وانكم هذين يا مال تنقيمها ليسكن كاني وحان هل كان سلام شرف لو قدر هي حبناها شبهة ودانية حرين توقادينية مدة دير هل كان كوبسو شري قبل نمين الشعب قوة قارسيان لقى صوب اللعبه أحمد قري إلى شبهة وطنية حرين توقادينيا ومدبدا كسوشري أما ديدنا قميسية حقيرات ديدنا شبهة داس مقعية كلا دوان لهيد اسكو برنامج كهيد يولكود واسكو مدها يوشدد دود شبهة فراها بدن مدة بدن سوهل جماهي أيام هالكن سلام وقدر هيا وحان هالكن كسلام يا أما أن وقدر هيا تحسيو سلام شرفيدا هالكن وقدر هيا انتي بدنيد شهدادي بدنيد مدة دير ويجو أهل جماهي حرمة الشعب قاضيين يجارسيان انتي وشهيدي بان هالكن سلام تعسيه سلام شرفيد وقدر هيا إلهي نحريستي هسيو إلهي أبط كوضنا وكيلها وغنقضو إلهي الشعب قوضنا وحيدون هيين إلهي هجارسيو وحن هالكن كسلام يا دولة كينيا oo runtii wafdi fiican oo mas'uuliin waaweyn inoo soo dirtay si ay inooga qayb galaan farxadan inooga qayb galaan ama ay uga mid yihiin farxadan kuwii iyagu lahaa ay ka mid yihiin waadiyaad baan u salaamaya u soo dhaweynaya waxaan halkan ka salaamayaa dawladihii iyo ashqaastii iyo ururadii weligood nagu garab taagnaa nagu taageerahayay inaanu gobonnimadayada gaadhno in shacbiga Soomaalida ogaadeeniya maalin maalmaha kamid ah inuu gobonnimadiisa gaadho dawladihii nagu taageerahayay iyo ururadii nagu taageerahayay yaan maanta magaciina salaan ugu dirayaa salaan baan u dirayaa aad baan idin salaamayaa sid waxaan idin la socodsiinaa ama aan runtii aan jecelahay halkan inaan ka shiro halgankeenu ma aha mid jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ay bilowday waa halgan wuxuu ahaa qoriisi dhiiba muddo dheer soo socday axmed guray ka soo bilaabmay sayidkii soo maray jayskii soo maray
intii ka dambaysa soo maray WSLF soo maray ONLF ay hadda ugu dambaysay intaas oo dhan waxay wada ahaayeen ururo gobonnimo doona ururadaasi sida aad la socotaan dhammaan barnaamijkoodu isku mid buu ahaa mid ka beddelaa ma jirin dhammaantood waxay doonayeen in shacbiga Soomaalida ogaadeeniya uu gobonnimo helo inuu gumaysiga ka baxo taasuu ahaa barnaamijkoodu waxay diidanayeen gumaysigay diidanayeen gumaysiga ayay diidanayeen waxay u dagaalamayeen u halgamayeen inay ummad madax bannaan oo iyagu dalkooda leh oo iyagu isu taliya inay noqdaan bay u halgamayeen waxaad moodaa ujeedadoodii inaynu maanta halkan ku faataxaynayno inay la gaadhay yaad runtii maanta u muuqataa ururada fara badan ujeedadoodii yaynu maanta bilaabaynaa ujeedaday u halgamayeen yaynu maanta halkan ka bilaabaynaa wixii ay diidanaayeen yaynu soo xidhnay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dadkii ama shacabkii iyo ururadoodii gobonnimo doonka ahaa waqti taariikhda ay soo mareen iyo halgankii ay soo mareen aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin ururkii ugu dambeeyey ee jabhadda wadaniga xoreynta gobonnimo doonka runtii ilaa dhowr iyo 30 sannadood yay halganka wadeen marxalad kasta way soo mareen dhibaato kasta way soo mareen waxay ay runtii ku guulaysteen si ay guusha u gaadhaan kow inay shacabkooda ku tiirsanaadaan waa tallaabada koobaad ururku wuxuu ahaa urur shacbi ah oo shacbigiisa ku tiirsan sidaad la socotaan jabhaddii wadaniga xoreynta ogaadeeniya ciidamadooda waxaa taakulayn jiray ama masruufi jiray shacbiga yaa masruufi jiray jabhadduna waxay go'aan ku gaadhay in go'aankeedu uu noqdo mid loo dhan yahay mid uusan qof gaarihi uusan gaadhaynin yuu ahaa intaasaan joogay anigu aan ka mid ahaa madaxda ururka aan ka mid ahaa weligay go'aan gaara ma qaadanin go'aanku wuxuu ahaa mid loo dhan yahay oo guddi lagu gaadho ayuu ahaa waxa maanta ina gaadhsiiyay guusha waxa weeye ururkeenna oo shacbi ah iyo go'aankiisa oo midmidaysana taasaa ina gaadhsiisay guusha waxayna taasi baabi'isay inuusan khilaaf ka dhex abuurmin ururka inuusan ka dhex abuurmin ururkii oo dhinacna shacbigii salka ku haya go'aankiisuna uu yahay mid midaysan yaa dhowr iyo 30 sannadood ugu soo socday guushii baynu maanta joognaa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ammaan baanu dirahayaa madaxdii iyo mas'uuliyiintii iyo xubnihii iyo ururkay iyo shacbigoodii wanaagsanaa ammaan baan u dirahayaa aad iyo aadna way u mahadsan yihiin ilaahayna waa ku mahadinayaa maanta middan ina joojiyey ee ay hadda bilaabahayaan nolosha cusub ujeeddadu ma aha inaynu soo dhammaynay mid cusub iyo halgan cusub iyo dhismo cusub maanta inoo bilaabmaysaa tii hore mid ka xoog badan oo ka adag yaa hadda inoo bilaabmaysaa waxaanu runtii u soo jeedinayaa shacbiga Soomaalida ogaadeeniya meel uu joogaba marxaladan cusub inuu ka wada qayb qaato siduu marxaladii halganka ee adkayd uga soo wada qayb qaato marxaladan dhismihii ummadda Soomaalida ogaadeeniya dhismaheeda inay si fiican uga wada qayb qaataan jabhaddii inay sidii u hogaamiso oo wadadii hore ku hogaamiso shacbigu inuu sidii hore u taageero oo wadadii halganka uu ku taageero si loo gaadho guul loo midaysan yahay si loo gaadho dawlad aynu inagu leenahay si loo gaadho dawlad aan inna
cidina aynan amarka bannaanka inaga siinayn go'aankeeda aynu inagu leenahay midnimo iyo iskaashi iyo wadajir ayaynu taa ku dhalin karaynaa yaynu ku dhalinaynaa haddaynaan iskaashanin oynaan wada jirin oo aynaan sidii awal hore halganka aynu ugu jiray dhismaha mustaqbalkeenna aynaan isu kaashanin guusha rasmiga ah ma gaadhayno guusha rasmiga ah muddadii aan halganka soo wadnay dhibaatooyin fara badan baa runtii halganku la kulmay dhibaatooyinkaasi qaarkood wuxuu ahaa kuwa deriska naga soo gaadhay deriska ama kuwii ehelka yaga ahaa ee Soomaalida ha ahaado ama cadowga ha ahaado ama annaga dhexdeenna ha ahaado innaga reer ogaadeen ee dhexdeenna ha ahaatee dhibaatooyin fara badan ayaa meel walba naga soo gaadhay dadka yaga iyo xubnaha gobonnimo doonka ayaa intii la qabqabto gumaysiga loo dhiibahayay xubnaha gobonnimo doonka yaa la leynayay waxaa gabdhaha yaga yaa la farxumaynaysay dadka yagii oo shacbiga ka mid ah yaa dhibaatooyinka ka qaybgalahayay ururadii iyo maamuladii dadka yaga uu moodahaya inay kuwoodii yihiin yaa dhibaatadayada ka qaybgalahayay dhibaato aad iyo fara badan yuu shacbiga yagu soo maray runtii si uu gobonnimo u gaadho dhibaatadaasna in badan baa ka qayb gashay maaha gumaysiga keliyeeta maahayn sokeeyo badan baa ka qayb galay sokeeyo ama deriska ha noqdo ama innaga ha noqdo ama maamuladii dadka yaga xukumi jiray ha noqdeene dhibaatooyin fara badan baa shacbiga yaga loo geystay waxaan kaga bogsanaynaa innagoo guusha iyo goolka dhalina iyaynu kaga bogsanaynaa haddaan hoos u foorsano haddaan dabacno haddaan hoos u oyno waxaynu gaadhayno maleh waxaan gaadhayno maleh waxa weeye inaynu si fiican oo geesinimo ah oo midnimo ah oo isku tashi ah oo adkaysi badan waa inaynu u midowno aynu goolka u dhalinno guusha u gaadhno innagoon cidnaan abaal ugu haynin cidna inagoon abaal ugu haynin waa inaan guusha gaadhno midnimo iyo wadajir ayaynu goolka ku dhalinaynaa marka waxaa weeye aad iyo aad baan idinku mahadnaqinayaa dhibaatooyinkaa faraha badan ee ina soo gaadhayna waxaynu kaga bogsanaynaa wadajir iyo midnimo iyo yoolkeennii oynu si dhaba aynu u gaadhno yaynu kaga bogsanaynaa waxaan idiin sheegay runtii in marxaladan hadda cusub ee inugu soo fool leh ay ka adag tahay tii gobonnimo doonka ay ka adag tahay waxaan innaga oo shacbi weynihii ah jabhaddii halganka soo wadnay maamulka degaanka ee Mustafa madaxda ka yahay ciddii kale ee waddaninimadeenna iyo dalkeenna يعني دنينيسا إنه آديان سكاشنو أميدونه واحد كان هرتاي كرامتشرو ما توحى حقيقة إن عن إدينا إسكان هرتاي كرام أجادا الشعب الصومالي ده أجادينيا وحما أنت إسكان هرتاي كراهيا متشرو دولة إثيوبيا ما إسكان هرتاي كريسو إد كلنا اسمه كان هرتاي حقيقة دي بالله صوتها waxa weeye innaga iyo dadnimadeena ku xidhan tahay haddaynu ummad isku kalsoon oo mid ah oo inay gobonnimo gaadha rabta haddaynu nahay waynu gaadhaynaa ummadaha adduunkaynu wax la qaybsanaynaa la mid baynu noqonaynaa haddii kale waynu ka hadhaynaa ubadkeennu wuu ka hadhi waxbarashadeennu way ka hadhi caafimaadkeennu wuu ka hadhi waxaynu noqonayna ma jiro waa layna kala qaybin waa layna layn qof walba meeshiisaa loogu tegi qof badbaadi ma jiro
qof badbaadi ma jiro waxa weeye qof wax ina siinayaana ma jiro ogaada xornimo qof ina siinaya ma jiro cid wax ina siinaysa ma jirto cid wax inoo taraysa ma jirto cid wax inoo taraysa ma jirto innagu aynu wax isu tarro innaga wax tarkeennana wuxuu ku imanayaa midnimadeenna iyo iskaashigeenna iyo wadajirkeenna iyo inaynu xusuusnaano mar walba dhibaatadii hore laynoo gaadhsiiyey inaynu kala qaybsanaantii inaynu xusuusnaano qabiilka iyo islaynta shacbigeenna waad ogtihiin wuu islaayaa hadduu islaynayaa qabaa'ilkaa islaynaya gobolladiibaa islaynaya waxaasoo dhan waa gumaysiga iyo ifafaalihiisa waa astaanta gumaysiga weeye inta shacbigeennu islaynayo ee qabiil isu laynayo horumar gaadhi mayno dowladnimo ma hanan karayno dowlad ma noqonayno intaynu qabiil isu laynayno ma noqonayno dowlad waxaynu rabnaa ummad mid ah oo Soomaali ogaadeena la yiraahdo oo mid ah oo hal qoys ah oo isjecel oo isku xidhan oo xornimo doonaysa yaan dadkaasaanu rabnaa haddaynu taa helo horumar baynu gaadhaynaa haddaynaan taa helin waa layna gumaysan shirkan sharafta leh ee faraha badan ee dadkeen isugu yimid waxay natiijo u yeelanayo ma jiro waa haddaynaan midoobin oo aynaan meel ka soo wada jeedsanin oo aynaan ummad hore noqonin oo gobonnimo doonaysa waxba tari mayno waa layna gumaysan haddii aynu midowno oo aynu yoolkeennaa hegsanno waxaynoo iman kara ma leh cid inoo iman karta iyo cid hunguriyaynaysa dadkeenna iyo dalkeenna cid hunguriyaynaysa ma jirto hataa hadday jirto oo isku daydo uma suurtagelayso marka innagaa isu hayna midida daabkeeda innagaa hayna ma xorownaa oo ummadaha la siman ma noqonnaa mise waxaynu noqonnaa ummad la gumaysto ayaynu noqonnaa labadaasa inoo taallaa haddaynu hal ummad noqonno oynu qabiilka halkaa iska dhigno oynu qoyska halkaa iska dhigno oynu islaynta shacbigeenna aynu halkaa iska dhigno haddaynu qoys noqonno oo aynu mid noqonno waxaa hubaala in dalkeenna iyo barwaaqadiisa iyo khayraadkiisa dalkeennu dal caana inuu noqonayo dalalka ugu khayr badan ee ugu sharafta badan inuu noqonayo waynu soo aragnay dhibaato iyo gumaysi waynu soo aragnay waxa weeye inaynu hadda aragno oo aynu raadino xornimo bal waxay tahay inaynu dhadhamanno ayaan rabnaa inaynu aragnaa rabnaa bal inaynu ka wardoonaynu rabnaa inay fiican tahay in kale sidee lagu gaadhayaa waxaa lagu gaadhayaa qabiil laguma gaadhayo xornimo lagu gaadhayo qoysas islaylaynaya laguma gaadhayo xornimo laguma gaadhayo dad kala qaybsan laguma gaadhayo waxaa lagu gaadhayaa ummad mid ah oo isjecel oo isku xidhan oo dalkooda dalkooda leh iyagoon awaamir aan kor laga soo siinaynin haddii kale waa layna xukumi waa layna kala qaybin waa la isku kaylayn aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxa weeye waxoogaa yar emotion baanahayo aad baan mataqaanaa ay hadalku iila tagtagahayaa waad mahadsantihiin waan idin salaamayaa aad baan idin salaamayaa guulaysta shacbiga reer Ogaadeeniya ha guulaysto shacbiga reer Ogaadeeniya ha guulaysto ha xoroobo aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay admiraal gudoomiyaha jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeeniya aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay